waxaan idhi ileen waa baryaan baabaca qarine socoto Puntland bartii lala rabay si beegsato baarkay tagtay war ma beentayba alla ilaahay Puntland burburkii dhiciyo baabi ka kore boob iyo dhac iyo laga baaqsay dirir alla ilaahay Puntland nabad buuxda iyo baraara la helay alla ilaahay Puntland professor iyo rag wax soo barta baarlamaan oo taladooda bila baabuur ileen baasi la'aan ma bilaaba socod Puntland oonan jirin qaran buuxsamiya tarabbiirsanta biyo oomay iyo baabacatin liya waa baryon bari aan ka iman shacabawir la isbahaystay oo Puntland diso bilicdi dhulka loo baratamaa bal jaleec qardhiyo banaankii nugaal xilli gool barqaa banaankii nugaal xilli gool barqaa bariisadu intay biyihii dhigto baliyadu dhammaan wada buuxsameen rahu booday iyo gaalkacaya bilan aad bogatidee soo booqayl barxadii garowiyo baran janiyo burtiliyo goldogob laas qoray bal arag ahya laas qolay bararag bana ha bada dhararsan ee khayraadka badan guula baxsho kama boodsaniye dad bislaaday baa boosaasadaga Allah ayo Puntland birta jeenta iyo ka dhig biixi adagoon abid burburin Allah ayo Puntland buqdi iyo xumiye Bruselka iyo beenaalihi iyo ka ilaali boog Allah ayo Puntland baaruuda iyo bambayaal qarxiye baasuukiyo balaayada ka dhowr عرفات عبد الله الشيخ أحمد عرفات وحاجرتي وهرتها ما شاء الله إلهي حفظه أن قربها أيام ويدي بل وحكي بي معوكو أركي قربها بل وحير عرفات قربها أنت عن قربها يمن نيو ما صدي بس عتابن مال أنت على دحين قربها أنت عن قربها waxa ugu weynana aan ku dhihla kara hadda oo meel fog baan u sii doonin cirqalaad baan joogaa cirqalaad xidigii aan warkii wadankii aan joogan arki jiray dib qaloocidii iyo ururkii iyo wixii aan naqaanay ma jiro hada fiirso wax yar yar oo dhowr xabba ama meesha sadano meel adeeg garmayso waa cirqalaad dhul qaraad xataa ma aha cirqalaad baan marka wax kale ma iga sii weydiin bade bal fiiri markaad wadankii joogto saa marka u fiirso way kala dad xidigaa qaar baa la kala yaqaanay jihooyinka iyo directionada kala garanaysa hadda dadku ma iskala tukada meel ay bari iga jirto iyo meel ay galbeed iga jiro ma garanayo okay awr cir iyo male nin la gagay iyo dib qaloocidii iyo afagaalayowgi iyo ururkii iyo ma jirto ilaahay waa taad maasadii intaana dhaxayma qurbaha meel badan baan iyo ka tiri way ugu badbadatay laakiin waa iska tirinaya shuruud haweenku waa inaan xanaaqin marka gacan baa iga yar dhacday waxaan idhi intaanan dhex iman qurbaha timaan kulaha dhakada dharaara haddaana jarin u sii dhaadhaca garbaha hadeerse dhammaado oo garoon dhagax baa ku hadhay intaanan dhex iman qurbaha anigu de timo waan leeyahay alxamdulillah waa roonay laakiin de waa tusaale weeye waxaan intaanan dhex iman qurbaha dheehan abid maali jiray caanaan dhami jiray liso intii dhiil la igu shubo kolkaan dhabanada qabsado durbaba dharag aawadeed dhag baan dhihi jiray hurdada quuran ka dhawaajin jiray hadeerse ma soo dhacdo soo jeed dhafar baa idilay waxaad arkaysaa saacadu way isguraysaa mooji dabadaad moodaa in laga soo eryayo waa bilaa camal haddana biisi tahay wey intaanan dhex iman qurbaha dheef baan cuni jiray la hubo inay dhadhan leedaho shakiga xaaraan ka dheer bisaylna u dheeriyahoo dhardhaar saddex gees iyo dab iyo dheri loo rakibay gabadhu ku dhibtootay oo intii laga dhowray saxar weliba isu dheelitiran hadda sadhuuniga la cuno dhabtii garan mayna rabbow naga dhaaf dembiga xaaraan baan cunaa ma dhihi karo laakiin waxun baan walaaqan intaanan dhex iman qurbaha dhar baan xidhan jiray asturan dhafoorna ma xiiran jirin aniga ma aha
dhafoorna ma xiiran jirin hadeerse dhaqaaqayo inaan dhumay waa hubaal surwaalkii dhaadhacayo baryuhu wuu dhaafayo asagoo dhacay baan haddana dhagaatiga sii hayaa dhalinta qaar baa misana dhagtiyo bishimahaba duran sidii dhuruqdhaaruq iyo dhurwaaga loo socdaa halkaa aan ku yar hakado dhuruqdhaaruq iyo dhurwaaga loo socdaa waxaan isdhahaa talow ma dhabarkiiyo jeenigiiyo raggii dhinac baa qallalay xanuunkii qalajiyaha ee dhinaca dadka soo ridi jireed ma weysaa inuu ku wada dhacay dadka saas waxaase kaaga daran niyo surwaalkani soo ma dhaco meeshana waa saaran yahay oo ma dhacayo dabadiina waa ka hooseeya intaanan dhex iman qurba dhurwaaga waa kii ragga wadigaysan intaanan dhex iman qurbaha dhulkii hooyee wacnaa habluhu dhaqanka iyo hidaha dhaliil uma yeeri jirin dadkii dhalay oo la marin haddii guur loo bandhigo dhulkaba kama qaadi jirin oo hadduu hadal ruux ku dhaho asluub dhowrsooni iyo xishood bay dhiman jireen xagga waa ka soo yarjeesanaya hadda ka bankayaadha soo tuura hadeerse la dhaaf warkaa kuwani way soo dhigteen dhurwaaga ka daran wax cunis jallaato la dhooway bay gidaarka ku dhuuqayaan dharaarana kay arkaan dhaqsay iska raacayaan markuu dhowr cunug ka dhala ayuu ka dhaqaajiyaa markaasay kii dhaliyo hooyada ku dhibaan daryeel kuwaaba intay dhaxaan habeen soo dhelmanayn halkuu gabo loogu dhaco ayaynaba dhaafahayn ileen waa qoom dhacmaya shiishay isku dhiibayaan waxay ka dhigteen shaqaba tufaaxa dhalaaliyo dhuxulo noo saar heblay ilaahay ballankii qiiqa waxaad moodaysaa inuu guri gubtay meelaha qaarkood intaanan dhex iman qurbaha dhulkii hooyee wacna way yar dheer tahay maasadu ah anaaba garay dareenkiinaan ka garanaya inina ku cajisan intaanan dhex iman qurbaha dhulkii hooyee wacnaa markuu dhool soo unkado dhibaca sii daaya roob durbaba uu biyo dhigay dhulkana meeshii gudnayd xareedu ka dhaansantaa rah baa ka dhawaaqi jiray doog baa soo dhalin jiroo dhurbiya maadhoo baxdiya caleenta dhammaamac iyo ubaxa dharabaystay baa dhaayaha lagu nuursan jiray hadeerse ma dhaadhacno dabayl dhaxan iyo hanfiyo dhulkani baraf baa qarsho waxaa dhaca haamadaya 6 biloodna garan baa lagu baxayaa waa la wada gubanayaa inta kale soo hadhayna qobtol aad moodayso kii awrta la saari jiray lagu soo dhaaminhayaa la huwan yahay intaana dhex iman qurbaha dhulkii hooyee wacnaa horweyn boqolaal dhan oo dhawaanahan ceel ka iman rag baa u dhardhigan jiroo dhanaha ka waraabin jiray oo haddana dhabar laga cawdiyo dhacdiid ma aqooni jirin hadeerse raggii dhannaa rag waa loo soo galay hadeerse raggii dhannaa wakaa dhakhtar raadiska ah kuwaa kula dhiikar iyo waxaa nagu dhacay macaan qaar baan isdhahaa talow xanuun lala dhuubtay iyo dhafoor xumi muu qabee malaha shaki baa u dheer dhayd baa lagu wada jira rag waana wada caafimaad qaba waa kow anoo maasatirnayo qos intaana dhex iman qurbaha dhulkii hooyee wacnaa intaana dhex iman qurbaha dhulkii hooyee wacnaa xaggeen maray raggii bay igaga tagtay shaqada ay soo dhacshaan weli kama hadhine shaqada ay soo dhacshaan dhaleeca anoon ka wadin dheecaan uus xoolo iyo digaagga la dhuun jariyo raggani dhagor bay rifaanoo lagu hadhiig baa qulqula hadda dhaleecaanoo ka wadin hadda ma caayaya shaqada ma dhaleecaynayo laakiin maba jirto dee shaqo caadi ah lagu hadhiig baa qulqula oo dhagxumo waxay iga daran kuwaa dhaqa suuliyada dhulkii laga faani jiray sharafu way dhimatay rabba oo ceebtaaya dhowr waxaan dhihi lahaa anuu dhulkii kuwa jooga ee madaxu dhoof kaga jirow intaad ku dhibtooni lahayd dhigga kula khayr aad calaacal u dhigan lahayd hadday tala kuu dhowday dhulkaagii hooye joog halkaas ku soo gabagaboobaysaa maasada walo waa yar kale liloobay haddana waa mahadsantihiin gacan baa iga kin dhacday maxaad hooye dhibtootay baa ka dambaysay waan idin xaal mariyey laakiin waxay iska ahayd waxaan arkay oo iska waaqicay iska ahayd marka haddaan runta laga maansoonin dee been baa qarsoon marka waad mahadsantihiin dhammaantiin aad baan idin salaamaya